runtii hay-adda maareynta masiibooyinka shaqooyin badan bay qabatay khaasatan gargaarka iyo caawimada maaha oon dhinaca raashinka dhinaca caafimaadka iyo inay garab istaagaan climate change-ka because cimilada aad bay u saameysaa Soomaalida khaasatan markay dhacdo abaaruhu iyo dadkan qaxootiyaasha marka shaqo badan ba qabataan waan la soconaa aad baynu ku mahadcelinaa shaqada qabataan mahadsanid howlwadeenada golaha shacabka dhamaantiin waa idin salaamayaa runtii sharaf ay noo tahay haddaan nahay howlwadeenada hay'adda maareynta musiibooyinka Sodma inaan maanta idinkala soo qayb galno seminaarkan iyo kulankan wacyigelinta insha Allah anagana wixii macluumaad ah oo ku saabsan qodobka naloo xil saaray inaan warbixin idinka siiyo aan idinka siin doono insha Allah runtii sida gudoomiye xildhibaan nadra ay sheegtay hay'adda maareynta musiibooyinka waxa waa hay'ad idinku cusub maaha waa hay'ad jirta hay'addu waxyaabo badan oo kala duwan ay ka shaqeysaa ugu horeyso waxa waaye sidii loola tacaali lahaa ma loo maareyn lahaa ilaahay naga yareeyo musiibooyinka kuwaas oo noqon kara markay dhacaan waxyaabo oo dabiici ah iyo waxyaabo qofka bini'aadamka uu gacantiisa uu ku abuuro xagga sida ay sheegtay gudoomiyuhu ka hortagga ma dhihi karnay waxa weeye waa arinta wax ka qabashada isbedelka saameynta cimiladu ay ku yeelantahay dalkan waxa weeye si mar walba looga feejignaado hay'addu waxay leedahay waax gaar ah oo la yiraahdo waaxda waxa waaye early warning ka waxa waaye in ay ka sii baaraan deegaan kana ay sii digaan marka la dareemo waxyaabo inay jiraan saad la socotaan fatahaadii hadda aan ka soo gudubnay El Niño intaysan nagu bilaaban ka hor ayaa saadaasheedii iyo digniinaheeda la sii bixiyay haddana allaha naga yareeyo oo ilaahay hana dhinac mariyo waxaa jirta phenomenon cusub hadda oo laga digaayo waddankeena Soomaaliya waxaan noqonay waddan sanadka gudihiisa waxaan u dhaxaynaa waa mar fatahaade ay jiraan iyo mar qalayl u jiro oo abaare ay jiraan hadda xilligii fatahaadahan ka soo gudubnay digniinii hadda ma la bixiyay saadaasha la sheegayo tii rabbina waa gooni waxaa la saadaalinaya oo effectigan hadda la arki doonaa in ay roob yare horta waa jirtaa roobkii dayrta oo aanan sidii loogu talagalay xilliga loogu talagalay oo aanan la helin iyo December markaad fiiriso sanadka 12 bilood sanadka sida u qaybsan yahay bilaha October November December waxa la yiraahdaa waa xilliga oo roobku dayrta ay da'ayeen hadda saad aragtaan November asii dhamaanayso December aan sii galayna January markii la gaarno waa xilligii waxa waaye oo jilaalkii la gali jiray marka roob yar hadda ma dareemayno dhibaatada laakiin sida la sheegay effectiga waxa la dareemi doonaa impactiga saameynta roob yaraantaasi January ilaa June inta u dhaxayso waxa la saadaalinayaa marka ilaahay waxa waaye waa iska saadaal waxa ilaahay inuu garab mariyo abaar ayaa la sheegaya inay nagu soo food leedahay marka taas waa mowduuc ka baxsanaa mowduuci maanta idin kugu soo talagalo hordhac ahaan idin siiyo taasoo marka hadda loo baahan yahay ka hortaggeedii iyo u diyaar garowgeedii waxa sidii wax looga qaban lahaa marka insha Allah waxaan guda galayaa marka arinta mowduuca maanta aad igu yeerateen aad igu sharafteen inaan warbixin idinka siiyo taasoo ku saabsan arintaasoo ku saabsan arrimaha maareynta gargaarka bini'aadminimo waxaa jira phenomenon marka dhacdooyin adduunka Soomaaliya kow kuma aha labana kuma ugumana dambayso adduunka oo dhan ay ka dhacdaa laakiin annaga inta badan waxaa lagu baraarugay sanadkii hadda aan soo dhaafnay 2023 bishii November ayaa lagu baraarugay kadib markii warbixin ay ka soo baxday xafiiska xogayaha guud ee qaramada midoobay taasoo ku saabsan warbixin ay ka diyaariyeen baaritaan dalka ay ka sameeyeen waxyaabihii natiijadii ka soo baxday ayaa waxaa la sheegay marka waxa maanta aan ka hadli doono oo ah in gargaarku oo loo isticmaalo mararka qaar sidii loogu talagalay si ka duwan oo laga leexiyo ujeedooyinkii laga lahaa oo kaalinta waxa marka waa kaalintiina halkan ku xoojinaya oo ah golaha shacabka waxa la idinkaga baahan yahay inaad xaqiijisaan in macnaha muhiimadda ma ahan
degmadayda ama constituency-gayga raashin baa la geeyey oo keliya ma ahan inaad ku qanacdo war wixii la geeyey wax tar leh oo bulshada wax u taray ma yihiin horta waxa weeye naftirkeeda in la xaqiijiyo waxa waaye waa doorka la rabo golaha inuu sameeyo dastuurka aan haysano kumeel gaarka in dhammaystirmaayo oo laga heshiinayo oo afti laga qaadayo waxaa sharci ah in lagu dhaqmo dastuurkii noo degsanaa hore noogu degsan sharciga qaxootiguna la yaala guddigii xaqa u lahaa xaqul-insaanka gacanta ku haya haddeer 20 joogaan waa ka dharagsannahay laakiin musuqa iyo maalin la'aanta iyo dhibaatada ka jirto waa wax laga rabo wasaaradda ama hay'adda qaabilsan inay ka shaqeyso annagu korjoogteyn keliyaan ku leenahay annaga maareynteeda shaqo kuma lihin korjoogteyntaas keliyaan ku leenahay marka maxaa sababay in ayadoo sharciyaal wasaarad iyo hay-adna ay leeyihiin inaan lagu dhaqan waayo wasaaradda arrimaha gudaha waa wasaarad aada u weyn hay-adda qaxootigana waa iyada laftirkeeda waa hay-ad madax bannaan maxaa keenay inaan la cuskan sharcigii hore u yiilay intaa sharcigaan la dhammaystiraayo kulley waqti badan ma qaadan dooneen oo loo yacni oy u dhacaan inta wax oo hadda aad sheegtay oo in hal hay-ad ay 5 wax ka fuliso hal meel in musuqa iyo waxa hadda ka sheekeynayso dhan maxaa sababa inay dhicin wasaaradda baa gabtay ilaa sharcigiisaan u soo sheegay waa yaalaa kan kale inta laga keenayo ma loo istaagaa waxyaabahan adeegyadan maanta bulshada ay u baahan tahay dhammaan waxay ahayn adeegyo ay dawladda ay bixiso wasaaradaha ayaa wakiil ka ahaa wasaaradihii markii ay baaba'een dawladdu markii ay burburtay oo wasaaradihii oo adeega bulshada bixin jiray ay baaba'eenna baahidu weli waa jirto shacabkii waa qabeen shacabku waxbarasho u baahnaa caafimaad u baahnaa biyo u baahnaa electricity u baahnaa waa markii ugu badneed marka Soomaaliya ay soo baxeen waxa la yiraahdo local NGOs oo buuxiyay gaabkii iyo waxa waaye adeegii ay bixin jirtay dawladdu ay bixin jirtay waxa dhacday marka hay-adihii iyo dadka waxa deeq bixiyaashu deeqdii markii ay keenayeen waxay ku xireen toos waxay leeyihiin implementing partner wax la yiraahdo ayaga ma aha inay imaanayeen ay waxii ay waddanka ka fulinayeen hay-adaha jooga oo wixii u fulinaya qaylada tan marka waxa markaad aad fiiriso waxyaabaha hadda markii raboorkaas uu ku saleysnaa dooda aan galnay warta laba shay waxa la rabo in la toosiyo la saxo maqalad waxna wax dawladda Soomaaliya gacanteeda la geliyay oo sidii la rabay uusan u maareyn miya mise waxyaabo kale oo waxa aad rabtaan in la hagaajiyo waxa la rabo in la hagaajiyo sharciga la rabo lagu toosiyo oo ayaguna hadda ay qirsan dadka qaarkood xataa hay-adaha deeqaha bixiyay inay ayagu hab dhaqankoodii wax ka beesha waxa ka maqan oo kale xilibaan doorkii dawladnimada ka maqan wali oo ay inkirsanay laakiin hadda ay qirsan yihiin sababta processka hay-adda ninkan deeqda waddankan donorka ah iyo implementing partners oo localka aha meeshay ku heshiinayeen waxa lagu heshiiyay qaabka shaqada loo fulin doono sida ay tahay wax door ah oo ay dawladdu ay ku leedahay ma waa taas hadda anaga waxa aan rabno habraacyada la sameeynayo iyo boolisiyada la dejinayo in lagu xoojiyo la helo waxa waa doorkii waxa waa dawladnimada waxa weeye maanta okay waxa waa dawladda Soomaaliya waxay gaartay heer waxa waa horta kuma jazaarayno waxa waa alxamdulillah rabbil caalamiin laguma jazaarayo local NGOs dalkan waxay ka soo gudbeen marxalad aad u adag laakiin marka waxa weeye waa hab dhaqankii iyo tacaamulkii ay kula tacaamuli jireen dadka donorska tii laguma sii jiri karo dawladda inay taagnaato oo dawladda la dhinac maro markii waxa laabaan la yiraahdo dawladda Soomaaliya ay wax ka hadlaysan yihiin taas waay waxa boolisiyada iyo lagu xoojin karo